dhawaan ay ahayd markii qaar ka mid ah ciidamada qaranka Soomaaliland ay ka goosteen ciidamada Soomaaliland kuna biireen ciidamada maamul goboleedka Puntland ee dalka Soomaaliya. Taliyihii guutada 39aad ee ciidamada qaranka Soomaaliland ee gobolka Badhan gaashaanle dhexe Xuseen Faarax Aadan Xuseen Dheer oo isagu ka mid ahaa saraakiishii hogaaminayay ciidamadaasi ayaa sheegay inay ku biireen maamul goboleedka Puntland kadib markii qaranka Soomaaliland ka waayeen waxyaabaha ay u baahnaayeen agabka ciidan. Dhanka kalena taliyuhu waxa uu sheegay inay ka amar qaadanayaan maamul goboleedka Puntland ayagoo ku sugan gobolka Badhan oo ka tirsan qaranka Soomaaliland. Haddaba maanta ayuu telefishinka caalamiga ee badda 24 TV mikrofoonka la dhex qaaday bulshaweynta ku dhaqan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland dareenkooda ku aadan ciidamada ka goostay ciidamada Soomaaliland isla markaasina ku biiray maamul goboleedka Puntland ayagoo dhaliil xoogan u diray ciidamada qaranka Soomaaliland ee ka goostay waxa hadaladoodii ka mid ahaa. anigu ciidanka waxaan u arkaa markii horeba wasiirkan qorsheynta ee Soomaaliya ayaa arrinkan watay dabadana ku soo hayo Soomaaliya oo dhan soo gelinayay Soomaaliland marka arrinkan waa arrin siyaasadeed oo wasiirka qorsheynta ee Soomaaliya uu ka dambeeyo ayuu baan u arkaa wax dhiba inaan u qaadanin markii horeba ma joogin iyagana dhawaan baa la qarameeyay ama ha goostan ama sii socdaan ama soo socdaan arrinta midnimada Soomaaliya waxa loo xil saaray wasiirka qorsheynta marka kulleeba anigu markii horeba waan ogeyn Soomaaliland marka waxaan aan reer Soomaaliland ka codsan lahayn inay lambarkooda ku adkaystaan oo waxaas aanay dhimin 700 meel ka goostay ay u qaataan laakiin wax macna ma aha markii horeba way ugu talagalay wasiirka qorsheyntaana hogaaminayay waana wax dhab oo aan ognahay walaal su'aashaas marka hore waxaan arkaa waa siyaasad xumo keentay siyaasad xumo madaxweynuhu kow ka yahay maamulka ciidanku ku xigo oo ku saabsan qofka bini'aadanka haddaan wax Soomaaliland waa la wada leeyahay Soomaaliland ku soo dagaalamay iyo kuwii markii la soo dagaalamay joogay cidna ma kala leh magacan Soomaaliland markii la yiraahdo lala baxay baa nidar lagu galay inaan Soomaaliland waxba kala riixanin ummaduna waxa leedahay masiirkeeda dadka matalaya ee wax kaaga taraya haddaadan xilka u dhiibin oo qof aan waxba ka ogeyn Soomaalidu waxa taan niman dhul mareen dhaayala niman reerkina waxba kaaga qaban kareen ciidan waxba kaaga qaban kareen markaad xil u magacawdo natiijadeedu waxay noqotaa in laga tashado marka anu waxaan leeyahay arinta kow waxa ku ceebeysan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland markii koowaad taariikhda ay dhacdo in amba ciidan Soomaaliland ku soo duulo caar inoogu waxaan noo bilaabay qoladana way ku xigtay qaar kala hadaan ummadda qarankan dantiisa aan wax laga bedelin ku xigi doona marka anu waxaan leeyahay su'aashaan ku soo gabagabeynaya hawshaas haday amaan leedahayna madaxweynaha leh haday ceeb leedahayna isaga leh marka anu waxaan u soo jeedinayaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland in madaxweynuhu uu dhageysto codkooda dhageysto taladooda qaato sallallahu alayhi wasallam rasuulka oo isagu waxay ku soo degay oo Ilaahay toos ula hadlay markuu doono marra markii jiru soo diray ayaa adana Ilaahay amar ku suulo la tashaawuro shuura ummadaada la shuurayso ku marka anu waxaan u qaarkayaa in karaamadii qarankan lahaa inay noqotay fataatiir ciyaar ku ciyaaraya madaxtooyada jooga madaxweynuhu inaanu dadkii u heelka ka qaadanayn talada ayay ila tahay waxaan anigu markaa u soo jeedin lahaa madaxweynaha oo lahaa arrintaas dib u sax dadkaasi tabashay u baxeen Soomaaliland nacayb uma bixin anigu waxaan ku kalsoonahay in dadkaas dad Soomaaliland dareeyihiin sababtoo ah dhulku ma go'o intaad rabto meel aad doonayso geysan maysid laakiin dadku damiirkoodu wuu isbedbedelaa qof walba halka dan ugu jirto uu raacaya marka waxana waa dana la isu geeyay marka danaha la isu geeyay in ummad waliba iska dhex aragto oo madaxweynuhu sidan uu yahay ka soo dabco oo dadkaasina waxa ay tabanayaan la dhageysto Soomaaliland ka goostay horta ciidamada Soomaaliland ka goostay markii ugu horeysay ay dhacdo maaha tiro kastaba hal ahaadaane laakiin imika waxa la sheegayaa ciidamadii ugu baaxadda badnaa inay imika goosteen baa la sheegayaa laakiin anigu fikirkaan qabo mahmaad Soomaaliyeed baa tiraadaha garaarac lagu ma dhutiyo kuna askari oo Soomaaliland ka goostay iyo 500 ka goostay iyo 200 ka goostay inaanay waxba u noqonaynin bal anigu khayr ba insha Allah noqon doonto waxaan arkaa horta hal qaran baynu ciidamada nahay iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland hal qaran weeyaan
halkaa qaran wixii naaqusanaya hal nin ha ahaatee dee waxa meesha ku jirta wax inaga tagayuun marka arrinkaasi wallaahi waa arrin dee laga xumaaday weeyaan marka dee adigu halkaa waxa looga sii gudbaa dee waa waxyaabii maaraynta iyo dee wixii adigu ayaa keenaysa laakiin waxa weeye halkaa arrinkaasi waa arrin dee wax inaga tagi weeyaan arrinkaasi Somaliland dee adigu dhaawac halkaas soo gaadhay bay noqonaysaa dee marka arrinkaasi ma wacna arrin foolxun weeye marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan dee maslaxadeedii iyo dee tabashooyin baa kale dee dhici kartaba inay jiraan meesha iyo dee gacmo kaleba soo galanayno arrinka dee insha Allah iska dhamaado rajayna insha Allah wada duubo shacabweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa dhaliil xoogan u diray ciidamada qaranka Soomaaliland ay ka goostay isla markaasina ku biiray maamul goboleedka Puntland وناصر عبد القادر عبد الوهاب ناصر تلسمي يصور قادة سري خضر إسماعيل محمد خضر نبال تلفزيون بدعة 24 تي في كلها مقالة هرقيسة.